kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka faaqidaada wararka haddii aad nagu cusub tahay walaal qaali subscribe inoo saar sidoo kale gambaleelka taabo si aad u hesho muuqaalada iyo warbixinaha aan 24 saac halkan ku baahino xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka dil toogasho ku filisay 6 nin oo hore ugu xukunsanaa dil toogasho ah toogashada ayaa saaka ka dhacday jeelka weyn ee Mandera magacyada rag la toogtay iyo magaalooyinka ay ka soo jeedaan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxay kala yihiin Farxaan Maxamed Xasan oo ka soo jeeda Buuhoodle Abdullahi Ismaaciil Xeedo ka soo jeeda Burco Axmed Gure Ibrahim Faarax oo isna Burco ka soo jeeda Khadar Aleel oo Gabiley ka soo jeeda Xasan Maxamed Cismaan oo Hargeysa ka soo jeeda Ciidaruus Khadar Haybo isna Hargeysa ka soo jeeda saddexda nin ayaa qaarkood waxay xirnaayeen dhowr iyo 10 sano rag la toogtay ayaa waxa kamid ah Farxaan Maxamed Xasan oo ah wiil ka soo jeeda magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaana bil ka hor soo duubay muuqaal ku sheegay in beesha uu ka soo jeeday ay u diiday inay ka bixiso magta uu xiran yahay 10 sano waxaana ka codsaday beelweynta daarood inay ka bixiso lacagtaas loo haysto balse qof codkiisa ka jawaab celiya waa la waayay ugu dambeyntii maanta ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa walila daawada muuqaalka laga soo duubay Farxaan bil ka hor isagoo markaas ku sheeganayay in lacagtaas laga bixiyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farxaan Xasan ka soo jeeda beesha daarood gaar ahaan beesha dhulbahante gaar ahaan beesha Axmed Garaad waxaan ku xiranahay jeelka weyn ee Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xiranahay muddada 9 sanadood waxaan ku xiranahay mag 9 sanadood beesheeda waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah cumrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariinteyda gaarsiiyo dhammaan beelweynta daarood meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa mudanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha daarood cid kasta oo hadalkayga uu gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 caruur leh qayb kamid ah caruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna waan helin inaanu is aragno oo midowno nasiib maan helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weey waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca daaroode muddo badan nin xiran baan oo mooralkii jabay manfac ma laha aakhiro dad yahow magaca reereed maanta aan inii baahanay mudanayaalow madoobiyo kale dani ku tahay waa macjuurahay mustafiyo farmaajan u diri musanaw hadale aad baan inii salaamaya maadaama aan si public ah ka soo codsaday idinkoo beelweyntii daarooda wax aad u yar oo maga waxaan idinka rajaynayaa inaad meesha igu caabayn publicaas layga dhageystay magtaana aad si degdeg iga soo bixisaan